riyadii Awmuridi barankigii Muqdisho YouTube-kii laga jabsaday Kaleelow iyo mucaawanadii fatahaad ku dhex dhuntay waa qayb kale oo ka mid ah barnaamijkeeni taxanaha ahaa ee riwaayadii riyadii Awmuridi. waxayna ku bilaabanaysaa qaybtan. Awmuridi habeenadan oo dhan wuxuu ku mashquulsanaa fiidsiga darbiga gurigiisa iyo hasaabaha macow oo ahaa dariskiisa oo ay inta badan ka wada sheekaysan jireen waxyaabaha maalintaas soo mara. waayo marka uu afro waxaa ku soo dega hurdo goosgoosa, kadibna xilliga dambe wuxuu u kacaa salaada tahajudka. warkii oo dhan waxaa soo koobay oo gudaha gurigaba ma soo dhaafo yiri saaxiibadii oo muddooyinkan dambe aad uga mashquulsanaa. waxaase mararka qaar u yimaada saaxiibkiis Majabe ayaa habeenkaa u yimid Awmuridi, wuxuuna sheekada ku bilaabay: Awmuridiyow, ninkii Kaleelow ahay ayaantan waa wareersan yahay. waxaas ii sheegay in laga jabsaday YouTube-kii uu lahaa. yaa Kaleelow maa tiri YouTube aas lahaan jiray? Awmuridi ayaa sidaasi cod dheer ku yiri. Majabana waxa uu ku jawaabay: haa, waa loo suubiyey, ilmihiisa u suubiyeen. Awmuridi mar kale isagoo la yaaban arrintaas ayuu yiri: Kaleelow dhalinyaro ma ahee, maxaa u suubsaday YouTube-ka? ilmo yar miyaa? cimrigaa raago geel dhalaya isku tusaa. Majabe xoogaa cara ah ayaa soo gashay, wuxuuna yiri: reer Banaadiri meel ma gaaraysiin, dadka dhan waa samaysteen, Kaleelow keligiis maxaa ugu diidayay? Awmuridi ayaa sheekadii sii dheereeyay oo yiri: odayaashii maasaas noqdeen. horta YouTube maxaa la dhahaa? ii sheeg. haddii YouTube odayaashii samaysteen, TikTokna waa samaysahayno. Majabe qosol ayuu la dhacay, wuxuuna Awmuridi ku yiri: adi naftirkaaga maxaa TikTok ku baray? Instagram iyo waxaas odayaal ma jiraan? iyadoo Majabe iyo Awmuridi ay fadhiyaan daaradda guriga oo sheekadaas dhinaca dhalinyarada qusaysa, dhinaca kalena odayaashu ka qayb noqdeen ay dhex marayso, ayaa Kaleelow guriga soo galay oo fadhigii kusoo biiray. laakiin Awmuridi iyo Majabe wayna ka gaabsadeen inay Kaleelow weydiiyaan arrintaas. Kaleelow isaga waxaa u qarsooneed kaamara aanay labada oday ee kala fahmin, waxaana u waday wiil yar oo la socday oo agagaarkooda si akhlaaq leh u fadhiyey. horena ay u soo ballameen Kaleelow, wuxuuna Kaleelow sheekada ku bilaabay: Awmuridi iyo Majabe, waxaan rabaa labadiina qofkii jabsaday dukaanka wiilkayga waa isla ogeydeen, iska sheega arrintan. aniga waa gudbina booliska, aan u sheegaa, intaan ka badan ma qari kari. labadii odayba cirka ayaa la wareegay, way dhidideen, naxdin baa ka soo hartay. Awmuridi oo taladu ka wareertay ayaa yiri: Kaleelow see camal waaye, see kaa noqotay, unuka maa wax ka axdeeno, YouTube aa la jabsadaan lee joogtaye, haddana dukaankaygaa la jabsada maa keentay, iiga baxa gurigayga. Awmuridi waa istaagay, waa qayliyey, bakooradii ayuu iska soo jaray. gurigii oo dhanna buuq ayaa saameeyey oo waa la isku walaacay. ninkii Majabe ahaa waa la celcelinayaa, waxaana ku soo baxay odayaal isku dayaya inay dhex galaan mashaqada ka dhex taagan odayaasha oo hore iyagu saaxiibo u ahaa. Kaleelow uu soo dhigay: ha i raacaan Awmuridi iyo Majabe, waxaan aadaynaa saldhigga booliska, waan dacwoonayaa. ummaddii oo dhan baa yaabtay, waxayna la yaabeen xaaladda socotay. waa la wada istaagay. Awmuridi iyo Majabe waxay isku diyaariyeen inay u jeestaan saldhigga. Kaleelow wax walba waa diiday ilaa la soo gaaro albaabkii guriga. kadibna wax lama filaan ayaa dhacay. wiil dhalinyaro oo aad u yar oo uu Awmuridi dhalay ayaa si kadis ah ku arkay kaameradii uu waday wiilkii la socday Kaleelow. marar badan la
ka qayb galay barnaamijyo ay duubayeen wiilasha kalelo. wiilkii ayaa mar keliya la soo booday. baranka waaye wax ka jira ma laha abaa muriida waxba ha xanaaqin baranka waaye. dadkii oo dhan ayaa mar keliya shucuurtooda isbedeshay. wuxuuna wiilkii kaamiradaas qarsoodiga waday uu bannaanka keenay kaamiradii. kalelo wuxuu bilaabay raaligelin, galqabsi, awmuriidi, marmajabe, jilbaha ayuu marjabo ka qabsaday. wax walba wuu sameeyey. awmuriidi oo caradii ka yara degtay ayaa yidhi, naga tag, baaruud ayaad nagu noqotay, maxaad sidaas noogu nixisay? isheenna allah ku dhaafiyo, sidaas maxaa noo yeeshay? aniga dhan waa iga gariirisi. waxyar kadib xiisadii waa degtay, waana la ismacsalaameyey. si farxad leh ayaa lagu kala tegay iyadoo la qoslay. awmuriidi kursi jiifkiisii bannaanka u yaalay ayuu xoogaa ku yara gamay. inkastoo ay weli fiid ahayd oo ay dhallinyarada bandooga ka soo xarootay ay barandada guriga meel aan sidaas ugu fogeyn ku sheekaysanayeen. awmuriidi waa yaro quuriyey oo hurdadii ayaa u baxday. wuxuuna bilaabay inuu riyoodo. wuxuu ku riyooday isagoo jooga magaalada beledweyne oo ay biyo badan ku fataxeen, uuna markaas ku dhex socdo biyihii dhexdooda, isagoo markaa wata boorso weyn oo ay ku jirto lacag mucaawano oo u suday dadka deegaanka. biyihii baa xoog yeeshay, waxaana ka fakaday boorsadii. isagiina khatar ayuu galay, wuuna qayliyey, boorsadaydii, lacagtaydii, mucaawanadaydii, lacagtii gargaarka. isagoo iska qayliyana ayay kor timid xaaskiisii oo ay la socdeen dhallinyaro. waxayna ku yidhaahdeen, war maxaa kuugu dhacay? mar walba ma iska qaylinaysaa habeen iyo maalin? awmuriidi ayaa toosay, wuxuuna isagoo neef tuuriya ku jawaabay, waxaan ku riyooday anigoo wado lacag kaalmo fatahaadda beledweyne loogu talagalay. magaalada markii aan tegay waxaa igu soo xoomay kooxo qoryo wata. way cabsiyeen, biyaha dhexdoodii ayayna lacagta iiga qaateen. waa la dagaalamay. waxay markii dambe biyaha dhexdooda iiga soo rideen xabado. hal mid ayaa sinta iiga dhacday, kuwii kalena lugta ayay iga dhaceen. markaas ayaan xanuunkii dartiis la qayliyey. waa tahay qaybtan waxay ka mid ahayd qaybyahan ugu talgalnay sheekadii taxanahayd ee awmuriidi. qaybta xigta intaan ku kulmayno, nabadgelyo. Audio Jungle.